astaanta qaranka hana lagu daydo macnaheedu waxay tahay anshax wanaag akhlaaq wadaniyad soomaalinimo astaanta qaranka macnaheedu waxay tahay waa diidnay qabyaalad aragnay meesha ay Soomaaliya dhigtay maanta dadkeena dhibka iyo silaca ay ku jiraan inay ahayd wax qabyaalad ka bilowday astaan qaran iyo qabyaalad isma geli karaan mana ogolaanayno qabyaalad qabiil ilaahay baa noo dhaliyay qof walba aabuu leeyahay awoow leeyahay markaan ka hadlayno qabyaalad markaan ka hadlayno qaran qabiil ma aha qaran waa wax ummadoo dhan ka wada dhaxeeya ay ku midowday qabyaalad diidnay qofkii maanta qabyaalad ciil u qaba maanta qofkii qabyaalad ciil u qaba 30 sano oo burbura hadduusan arkin indhaha loo fiiqo waa nin indhala waa nin dhagala hadday xumaanta ka badatayna waa iska qabanaynaa maxaa yeelay qabyaalad ma shaqaynin adduunka meelay ka shaqaysana ma laha mana noo shaqaynayso waxaan ka tagnay oo aan doonaynaa in looga daydo inaan la dagaalno musuqmaasuqa waa waxyaabaha cuyaabay dowladnimada Soomaaliyeed oo horumarka noo diiday inaan dhisno ciidan xoog leh macnaheedu waxay tahay waa cudur ku dhex jira dowladnimadeena haddaynan la dagaalamin oo aynan bannaanka iska dhigin waxba kama duwana shabaabkaas caruurteenna iyo dumarkeenna iyo culummadeenna iyo ciroolaheenna maalin walba qarxinaya oo laynaya maxaan ku idhaahdaa musuqmaasuqu waa cudur nagu jira oo khasab ay tahay inaan iska qabanno